موسى وحن ليهي موسى عندنا هودنين سيدي كورون يل موسى نين حل ربا ودد كان شعبك حل ربا ما نبض أن لهلين والله بريايو كباب أباكر وناكسن odayaasha dhexdhexaadinaya oo mar burco iyo meelahaas soo taagay oo la waxbaanu nabadaynayna taa nabadayn laba yiraahdo guriyinaada reer laasacaan waxaan leeyahay adeer jihad baa ku jiraan waa jihad ninku haduu maatadiisa oo laynayo dagaalama way waa bahrunar halkiina difaacda ciidiina idinkoo gaajaysan oo dhibaataysan oo dhaawacan adeer ku dhinta annagu isaaqo dhan eedayn mayno wax garad bay leeyihiin dad wanaagsan bay leeyihiin dad xumaanta diidan bay leeyihiin laakiin gacanta xoguma jiraan waxaan leeyahay reer laasacaano waxa kan kaararkan xun ee waxa la wareegayo iyo hay'adaha la wareegayaan waa dalka in la idinka qeexo la idinka qaado oo meesha cid la leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim adeeranaga magacayga waxa la yiraahdaa Aqal Maxamuud Axmed Rooble Aqal Xaqudirir inta taqaan iyo inta aan garanaynba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب waxaan rabaa adeerow arrimo in muddo ka rafanayay meesha la yiraahdo Laasacaano oo nabadeeda si badan loo raadiyay oo tanaasul badan loo sameeyay oo isimada iyo waxgaradka iyo dadka shacabka iyo ciidamaduba ay raadiyeen wanaaga ummaddu amaanka ku kala heli karo aad bay ugu mahadsan yihiin in nabad la raadiyo oo sharaf la raadiyo oo wanaag la raadiyo oo wax aad u haboon laakiin waa hadda helayso nabad aan la helayn hadda waxay noqonaysaa wax tuugsiya oo maryootana adeerow dagaaladii halka ka dhacay waxaan maqlay Muuse Biixi heshiis baa la galay oo Ethiopian baa la hadlay oo waxa la yiri ciidamada Ethiopianka oo labada qolob la hadlay oo yiri Muuse ciidankaaga ka saar meesha markaad ciidankaaga meesha ka saadho oo geeso xuduudku meeshuu ahaa Soomaalida qabiilka sideedaba xuduuday kala leeyihiin dalka waa la kala degaa ummadda uu kala xadidan yahay iskuma gardaroodo markii la yiri xuduudkaaga tag waxa moodaa Muuse inuu urursanayo hub ama de xabad joojintii iyo nidaamkii laga sugaayaba وكو جوابaya madaafiic oo dadka shacabka la dhacay taasi waxay noqonaysaa waxaan la daawan karin waxay noqonaysaa wax aad u dhaqan xumo ah waxay noqonaysaa wax ummadda Soomaaliyeed aan xeer iyo dhaqan midna ahayn Muuse waxaan leeyahay ninkii wuxuu yiri ninba wuxuu yiri boqor baan ahay hebel oo boqor dhahay oo wax noocaas markaa waxa la yiri hebelow boqor noqon mayside bahal noqon marka Muuse waxaan leenahay Muuse madaxweyne noqon mayside jamhad waalan noqon dadkan Soomaalida waa isku dhaqan dadkan waa wada degaan dadkan waa wiilii abtidiis annagu isaaqo dhan eedayn mayno wax garad bay leeyihiin dad wanaagsan bay leeyihiin dad xumaanta diidan bay leeyihiin laakiin gacanta xoguma jiraan waxaan arkayaa boorame oo mudaharaadaysa oo leh Muuse hadii Allah alayhi naga tag adduunka hadda Soomaaliya waxa ka kacay qabqablayaal xaftar roon niman xaftar la yiraahdo oo maamul goboleedada Muuse kaliya ma waa badan yihiin laakiin dadku waa isdhaamaayo xogaa in adeeg iyo nidaam kale iyo waxba lagu wadaa laakiin dalkan maalintii horta maamul goboleed loo sameeyay oo loo madaxweynayaal loogu dhawaaqay buu dalkan dhumay ilaahay ummadda xaqaha faansiyo waan leenahay bil Ramadaan baa soo socota bishii la cibaadaysan jiray way bishii dhiiga iyo dagaalka iyo dhibaatada la gali jiray maaha Muuse waxaan leeyahay Muuse cidna ha u danaynay sidii ku rooyeel shacab u danayn mayso bini aadan u kale u danayn mayso dad Soomaaliyeed u danayn mayso isaaq boosaasay degan yihiin xamar bay joogaan Laasacaanadaasay joogaan oo nabad ku joogaan dad shacab cid doonanaysa ma leh waan maqlaayay maalin dhaweydnimo tuulooyin jooga oo tuulooyin laga afduubayo la leynayo waxa Muuse sameeynayo waxaan leeyahay reer Laasacaano iyo dadka la leynayo idinka suurtoobin waxyaalaha oo Muuse ku kacayo oo kale iyaga intaas aan leeyahay Muuse waxaan leeyahay haddii beel calani wax ka qaban weydii cid kale wax ku sheegtana la waa
ciyaalkan yaryar oo aad ururinayso hargeysa iyo boorame iyo caalamka dhan ka soo ururinayso aniyo waqtigooda iyo khaatumada haseejin dadka waxgaradka oo culimada leh oo aqoonyahanka leh oo dee ka soo jeeda Somaliland oo dhibta diidan oo dee ummaddu waxaan u maleynayaa waxa looma wada dhamee oo kamida beesha garxajis wanaagii iyo sharaftii odayaashoodu ka mareen maca dhalinyaradu aad baan ugu mahad celinaya laakiin hadda waxa moodaa inay baashu taagan tahay baraka ma leh muuse meel aadan ka soo celin karayn oo hadhow adigu aadan ka dabaalan karayn baasha ha geyn inta goor tahay oo nabadgelyadu waa wanaagsan tahay nabad baa naas luuga leh tag xadkaagi caalamka lama arag nin intuu adiga gurigaaga kugu soo dhaco oo deerkii soo dhaafo oo sariirtii adigu aad joogtay yimaado oo yiraahdo ila heshii ma dhici ka wax dhici karo aqliga binaadamka qaadan karo ma tahay sariirta aad xaaski iyo adigii sariirtii jiifka ahayd qori kugu haya ila heshiina waa kulay yani wax aqligu qaadan kara maaha wax qof bin aadan ka dul qaadan karana maaha waxaan leenahay muuse qadaabka ku soconayso wax ka bedel hadaadan ka bedelin meel ka dheer baa ka doonaysa dawlado kale oo muuse daba socda oo ama dana shidaal hal ahaadeen siyaasadaha la saacana looga dalinayaa waa dareensanahay dad waaweyn baanu nahay dad magaalo ku dhashay baanu nahay dad dalka u dhashay baanu nahay uqaal baanu nahay wanaag baanu ka talinaynaa laakiin waxaan ka talinaynaa siyaasadaha laga dalinayaa meesha oo dhan waa dareensanahay inna wuxuu rabaa dad xataa ummadda in la qaxiyo oo ban cidlaayo meel cidlaa loo yimaado dad badan baa waxa ka shaqeynaya laakiin ma u suurta gelayso dadkan ciidooda ku dhimanayaan waxa mudaharaaday oo kacdoonkaasi ka yimi ciyaal dhalinyaro ah iyo dumar bay ahaayeen maanta meeshay marayso arkaysa tan uu leeyahay ciidamada aniga Itoobiya iiga yimi oo xamar baa ciidamo iiga yimaadeen oo Puntland bay ciidamo ka yimaadeen de nimanka meesha dega ciidamadoodu xamar bay joogaan oo Puntland bay joogaan oo kiilka shanaad oo Itoobiya bay joogaan haddii dharkii hadduu aad ku indho wareegday oo dhowr nooc kula noqday nimankii dalka u dhashay hooyadood iyo ciyaalkooda xabadda la dhacayso way nimanka tuutaasi taadeedaynaysa wax aqliga binaadamka ay qaadan karo maaha wax nin qiimo leh ku sheekeeyana maaha waana imaanayaan nin gurigiisii iyo hooyadiis iyo ciyaalkiisa xabad la dhacayo isagoo tuutasita maaha isagoo bambooyinsitu imaanaya gurigiisa gubtay xagee ku maqnaanaya marka nidaamadaasi wax ka soconaya maaha waxaan maqlaayay mudaharaad buu hadda qalqaalinayaayo ladan iyo laga mudaharaad u leeyahay waxaan arki jiray nin dhib lagu sameeyo oo mudaharaada ninkii dhibta sameeyay oo dadka laayay oo ummadda baabi'iyay muuse hadda ilaa dadka dhintay oo dhimashada ay 500 qof bay marayaan 2,000 oo qofna waa qaxeen dur baa kaneeco iyo bahal ku laasteen ninka waxa sameynaya oo dhibta sameynaya wax madaxa wali loo salaaxaya waxaan leeyahay beesha caalamka waladan oo yuuda nimankan sheegta waxbaanu xaquuqda bini aadanka fiirfiirinaa waxbaanu raadinaa umalayn maayo inay nidaam xaq soo wadaan waxaan leeyahay arinta in dheer loo yeesho haddaydan u yeelan karayn oo muuse la kibrinayo muuse wada la iska marinaya wuxuu la dagaalamayaa bini aadan ciyaalku leynayo iyo dumarka uu leynayo oo sidaa u galayo oo garneelka iyo madaxa kala dhacayo de wiilal shaatuuta qaba oo meel walba joogay leeyihiin gorgor baa imaanaya haramcad baa imaanaya kuwa Itoobiya imaanaya kuwa Puntland baa imaanaya kuwa adiga kula jooga imaanaya kuwa adiga kula jooga ciidanka kula aan jiray baa imaanaya nin walba soo gelaya arintu inta waa ka kululaanaysa muuse ninna hawdanayn laakiin dantaada aqoonso nimanka saraakiisha oo hadda la saana jooga waxaan leeyahay intii idinku raadin ka dhan wanaag iyo xal waa raadiseen muuse nin xal raba ma muuse nin xal raba oo dadkan shacabka xal u raba ma nabad aan la helayn oo wala bariyaayo ku baabaa ka wanaagsan nin caaqil hadalkii maaha hadalka aan leeyahay laakiin waa kalifay wax badan baanu dhageysanay wax badan baanu daawanay wax badan baanu ka hadalnay
beri mageydadii baanu nahay kuwa hargeysa iyo u dhashay baa ka hadlaya oo leeyahay muuse waa gardareen beelihii garxijis iyo ciidankoodii iyo dhalinyaradoodii baa ka hadlaya oo dadka gurigooda uga bax war nin gurigiisa lagu dilaayo leeyahay nabad qaata nimanka culimada wax garadka ka hadlayo le hal dhexdhexaadiyo shaqaaqa meesha ka dhacday shaqaaqa kama dhicin meesha silsaal baa ka dhacay dad masaakiina oo shacaba baa garnayl la dhacay ma ninka garnaylka la dhacay baa leedahay nabad raadiyo yaa laga raadiyaa xalka haddii laba nin hadda ay ulis la dhacaan oo dagaalamaan oo nin isagoo soconaya nin fadhiya intuu u yimaado bakoorad ku bilaabo ul dabada u qabto ma labada nin kala celinaya leeyahay mise ninka ka qabta muuse dalka ka qabta waxa ehelka u ah iyo waxa daba jooga iyo waxa ciidanaan u soo raacaya muuse dalkan ma leh ninna dal uusan lahaynna ma khasbi karo dadkii lahaabaa u tashaday SSC baa nala yidhaahdaa bay yidhaahdeen dhow waxa kan shaqo kuma lihin cid idiin timi ma leh muuse Puntland iyo Ethiopia iyo waxba ha eedayn wiilasha aad leedahay hadba meel baa la iiga yimi ninna kuma iman laakiin waa nimanka asaan u dhashay waana ka sii kululaanaysaa meel dheer baa ka sii doonaysaa muuse tag xuduudka leedahay hadda nabadgeliyo iyo wanaag iyo sharaf rabto odayaasha dhexdhexaadinaya oo mar burco iyo meelaha soo taagay oo waxbaanu nabadaynayna taa nabadayn laba yiraahdo guriyina aada hadda saa wax ku nabadaynaysaan dad baa isku leeynaysaa nabadayn ma soo wadaan aniga hadalkaygu waxaan doonayaa waxa runta baan ka hadlaa kani gar loo kani gar leh wax la qaadan karo af Soomaaliya ma odayaasha beesha saaq waxaan leeyahay war wax garadkiina culimadiina ka hadla arintan oo wiilakan qabta in la qaban waaya waa in la kibrinaya in la kibriyana fadeexad buu ku dameeyaa waxaan leeyahay niyo arintaas ka bedela sidaas oo taga xuduudkiini saraakiil baatimi dawlad inoo dhaxaysa timi inna uma danaynayn waxay tiri xuduudka aaleedeen taga ballan baa la qaaday hadeera waxa keentay in qoryo iyo soo urursato iyo madaafiic la dhacdo dadkii lagu yiri meeshan ka baxaya shala ku tiri baad madaafiic la dhacaysa kuleelkeeda darkaysa dabkeeda darkaysa dadka reer laasacaan waxaan leeyahay adeer jihad baa ku jiraan waa jihad ninka gurigiisa markii lagu ciyaalkiisa iyo maataysa la laayo khaliifka bagiisa baa waxa ku jiray mar hadii murwada qabto iyo maxastu nuunaasto oo adan mintidin jahannaba lagu muufayn ninku haduu maatadiisa oo leynayo dagaalama waayo waa helo naar kitaabka diinta inoo tiri dad culimaa baa waa garanayna ninka waxaan leeyahay iska celiya dagaalama dalkiina xoreysta sidoo Muuse u dirirayna u dirirayna ninka dhaawacaya qabatan daweeya ninka isdhiiba xafadiisu celiya ninka idin yimaada sharaf lagu la dhaqmo dadka shacabka oo wadada maraya iyo ummadaas la kala dheerayn maayo meel la kala aadi maayo dadku waa wiil yaabti dadku waa ahel sida Muuse u dagaalamayo dagaal gudnimeedka yaan loo dagaalamin hal gobanimo dagaalamo dadka aan qaxootiga oo kaararka la siinayo hadii kaarar dhaxdiina lagu bilaabo waxaad arkaysaa wiilkii furinta ku jiray oo kaar doonaya ama waa dhacdayba kurinta kii qoriga ku jiray oo dagaalamayo dalka u dagaalamayay oo la yiri London dadkan horta dibad baa laga raacay adeer dhulkan barafka kuwii kunka sano joogay baa caruurtooda laga qaaday ka soo qaxay oo ka soo cararay nin ciidiisa iyo dalkiisa looma dhaamo reer SSC waxaan leeyahay hay'adda tan wareegayso oo idin leh kaar baan idin siinayna arladii ni meel ka aadade annagu kaar iyo qaxooti mid uga baahnine naga guura ka saara dalka waxay idin qabanaysaa ma jiraan idab darro iyo jaajuusnimo iyo qurmeedu kula dhex wareegaysaa dalkiina difaacda ciidiina idinkoo gaajaysan oo dhibaataysan oo dhaawacan adeer ku dhinta waxa kan kaararkan iyo qurunkan la wareegayo geeliina iyo caanihiina iyo xoolihiina ku filan iimaansada dalkiina niman dalkiisa waxa la yiraahdaa nin dhalashu kugu dhiidhiyay nin dhuunu kugu dhaadhacay anoqonina nin dhuuni qaada dalku wuxuu rabaa adeer waxaan loo dhibaatoon lama helo waad ogeydeen Ethiopia abi waxa la yiraahdaa dalka ka bax magagal yaanu ku siinayna anu dadkii la magaliye la siin jiray ma hay buu yiraahdaa wiilkaas oo kala la rabaa wiil dalka inuu leeyahay isagu inuu dalkan leeyahay og baa la rabaa
waxaan leeyahay reer laasacaano waxa kan kaararkan xun iyo waxa la wareegayo iyo hay'adaha la wareegayaan waa dalka in la idinka qaxo la idinka qaado oo meesha cid la leeyahay filimka iyo dagaalka iyo waxa loo wadwado oo loo digdig leeyahay kun dawladood baa ku jira oo ceelka hawlo leeyahay la doonaya dad baa waxay rabaan inagoo idinkana xabad la idin la dhaco ceelashiina sida ku dhurtaan waa in lagu dhinto waa in dalka loo dhinto dalka waa in la difaacdo dalku difaac buu rabaa iyo dhimasho kuwii dhalinyarada oo ku shahiiday oo ku dhintay oo iyagoo calankooda u dhintay waxaan leeyahay ilaahay jannada ka waraabiyo inta dhaawacantana ilaahay ha u boogadhayo isimada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanadana waxaan leeyahay filimka ayaan dadka shacabka lagu hodin hay'adda tan waxa tiraahdaa naga bax yeyna idin soo gelin yeyna idin soo dhaxgelin waa aqal xaqdirir oo wuxuu idin leeyahay waari meysida warakaaro salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh